saaxiibayaal halkan waa markacadii TV muuqaal kale ayaan idin haynaa. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo walaalkiisa ayaa qiiladhaan afka furtay isagoona tilmaamay in hadda cagta la saaray wadadii burburka waxa uu ku eedeeyay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya in iyagu ay mas'uul ka yihiin in maanta Soomaaliya qarannimadeedii ay baabaado isla markaana dib loogu noqdo. Waxa uu la sheegay in madaxweyne Farmaajo uu ahaa shakhsi soo celiyay haykalkii dowladnimo isla markaana uu ahaa shakhsi mudan in lagu abaalmariyo. Waxa uu si gaar ah u mahadceliyay shacabka Soomaaliyeed oo hadda bilaabay in ay madaxweyne Farmaajo u abaalgudaan. Taana waxa ay ku tusaysaa in madaxweyne Farmaajo uu yahay shakhsi ku weyn qulubta shacabka Soomaaliyeed. Waxa uu sheegay in dadka hadda la doortay yihiin dad markaasi dana shisheeye u shaqeynaya laakiin danta guud ee dalka aan waxba ka qabanaynin. Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyagu ay mas'uuliyadda qaadayaan maalinta yawmul qiyaamaha iyo sidoo kale waxyaabaha sumcad darrada ee maanta dalka ku soo wajahan. Waxa uu sheegay markii madaxweyne Farmaajo aadaya dibadda in ay soo dhaweynayeen mas'uuliyiin isaga ku taytala ama ku level ah, laakiin hadda madaxda inoo joogta markay u ambabaxaan dalka dibaddiisa waxa inta badan soo dhaweynaya dad ka hooseeya. Haddaba tusaale ahaan markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu safro dalka dibaddiisa waxaa soo dhaweynaya wasiir ku-xigeen ama wasiiru dowle, halka madaxweyne Farmaajo markii uu baxo isla markaana uu aado dalka dibaddiisa uu garoonka kaga hortagayo madaxweynaha waddanka u socdo. Haddaba saaxiibayaal waxa uu sheegay in hadda dib loogu noqday burburkii halaagiina dad badanna ay dhibaato u horseedi doonto. Waxa uu sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu yahay shakhsi inta badan ku faana in dalkan uu gacanta u geliyo dana shishay, isagoona sheegay inay ka suurtoodo in Falastiin uu ku tilmaamo inay tahay dal Yahuuda. Waa siduu hadalka u dhigay. Waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay mudan yihiin inay dib u xasuustaan ninkii Jigjiga tegay kana dhaantiyay. Taasi waxay ku tusaysaa in Jigjiga uu aqoonsanayo dhul markaasi Itoobiya ay leedahay. Haddaba waxa uu hoosta ka xariiqay inay muhiim tahay in shakhsiyaadka danaha shisheeye ku mashquulsan in la garto isla markaana danta qaranka dadka wada talada gacanta loo geliyo ayay mudneed buu yiri shakhsigan markaasi la sheegay inuu aad ugu dhow yahay madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo. Haddaba saaxiibayaal shakhsigan hadalkiisa nala daawada iyo eedeynta uu kala dulaacay mas'uuliyiinta hadda xilka haya uuna ku tilmaamay dhammaantooda inay yihiin dad markaasi la soo dirsaday isla markaana dana shisheeye ka shaqeynaya. jamaahiirta Soomaaliyeed waa in soo salaamaya meel kasta oo dunida joogtaanba. markuu qarankeenu jiray ee Maxamed Cabdilaahi Farmaajo madaxweynaha ka ahaa waxyaalaha maanta aan arkayna ka dhacaya dalkii Soomaaliya ma dhici jirin. ciyaartoy Soomaaliyeed oo reer ahaan amba qabiil ahaan lagu soo xulayo oo la oranayo ordo ciyaar taga ma dhacayn. 16 gool iyo 0 ma dhici jirin. wax dhacay ma ahayn. taariikhda maanta ay noo kooya qarankeennii intuu noolaa ee uu soo jiray in dowladda ahayn ee Maxamed Cabdilaahi Farmaajo madaxweynaha ka ahaa ma dhacayn. madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Farmaajo oo dal booqday oo wasiir dowlad soo dhaweeyay wax dhacay ma ahayn oo qol madow la geeyay wax dhici jiray ma ahayn. taasi waxay ku tusaysaa qarankeenii dumay ee haligmay ee masiibadu ku dhacday ee masiibooyinkii mujrimiintii la oranayay xildhibaanada ay daleen qarankeenii dabada u soo jeediyeen. dowladnimadeenii iyo sharafteenii iyo qarannimadeenii iyo calankeenii iyo ciidankeenii iyo haybadeenii bay dabada u soo jeediyeen. markaas waxay caleema saareen oo doorteen maamul beeleed kaliya. qarankii marka halkaasuu ku rogmaday, halkaasuu ku halaagmay. waxyaalaha ka yimid maamul beeleedkiina waa idiin muuqataa. waxay magacowdeen oo doorteen maamul beeleed ay xukumaan imaaraadka, safiirka imaaraadku xukumo ee Muqdisho jooga iyo ka Kenya. xasan dhiiqo waxaa la geeyay imaaraadka. waana macquul in ilaa Yahuuda la sii qaado meeshii doonaa la geynaya. qofku hadduu baahan yahay dee waa gun sharaf ma leh. nin baahani waa gun. cid wuxuu ka diidi karaa ma jiro. haddii la doono waa la geyn karaa.
sakrad ahaan baa loo geyn karaa waddanka yuhuudda iyadoo qarsoodiya la geyn karaya waayo shaki kuma jiro xasan dhiiqo iyo mahad salaad iyo tiimkoodii qoladii qaran dumiska ahaa xaraash qaran waa kuwii tegey jigjiga dalkii Soomaaliyeed ee Itoobiya gumaysanaysa waa raggii tegey ee ka dhaanteey ee waxaan u aqoonsanay dal Itoobiyana inuu yahay marka Allah shak caleeha inay yiraahdaan Falastiin waa dal Yuhuudeed inay yiraahdaan wax alla wax iyaga dhibaato kuma aha aqligooga iyo aqoontooda taas ay siinaysaa marka waa qaran dumay qarankeenii oo dumay oo la qaybsaday meydkii odagii candhada weynaaye halkan xamar lagu hayay meydkiisiina waxa loo geeyay Kenya la geeyay halkaas uu joogaa isaguna labadii dal bay kala midna halkaas uu tagay midna halkan uu tagay habartii Firimbiga sidata laga tagay meesh marka waa qaran dumay qarankii Soomaaliyeed halkaas ku dumay horana waanu sheegay waa meyd waxay sitaan meyd bay sitaan oo la wareegayaan naanaga nama matalaan qaran Soomaaliyeed matalaan madaxweyne Soomaaliyeedna ma xasan dhiiqiya ma salaad ma madaxweyne Soomaaliyeed annaga nooma annaga madaxweyne waxaan noo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wali qalbigayga ku qoran waxa kale oo rabaalka inaan kala hadlo ninka la yiraahdo Bayle hadalkaagu iskhilaafaya waxa tiri 6 bilood mishaarkoodii baan hayaa haddana waxa tiri wax mishaaron hayaa ma jirto waa inaad sheegtaa lacagtii inay qaateen maamul beeleedkii oo ugu kala tageen maalintii Farmaajo qolka ka baxay meesha ka baxay filla Soomaaliya maalintiiba waa kii Roobla yimaadeen iyo Al-Cadaala iyo Mahad Salaad iyo Saadiq John iyo Xasan Sheekh waa ku isku soo wareeyay halkii lacagti joog tiimkii qabayaashii qarankan u ciil qabay ee dhaqaalaha u ciil qabay waa kuwii lacagta halkii u dhacay adiga horta waxay galiyeen cagaf habeenimo dadku seexdeen bay jabsadeen marka waan ognahay culayska ku saaran magacaaga ayaa la isticmaalin sharaftaadana ayaa la isticmaalin magac baad ummadda Soomaaliyeed ku leedahay been ha sheegin nin reerkiina lagu yiri haddii aad Itoobiya tagto oo tiraahdo Boorman ka yimid waa lagu dilayaa marka ninkii baa Itoobiya tagay waana la qabtay markaas la yiri xageed ka timid wuxuu yiri Boorman ka yimid been maxay qaban Boorman ka yimid waxaan ku leeyahay aad iyo aad baad sharaf ugu leedahay ummadda Soomaaliyeed meeshani waa maamul beeleed sharaf iyo karaamadi ma taalo waa la isku hanjabayaa waa la is ugaarsanaya qabayaal bay gacanta u gashay xoogii qarankii Soomaaliya wixii ay lahaayeen rag qabayaal ayay gacanta u gashay waa la is ugaarsanaya iskaga bax Professor Amare waa uu sii hadlay waa aqoonyahan taxliiliye arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxa uu sheegay in 2017 bishii labaad ee February markii la doortay madaxweyne Farmaajo dalka waxa uu cagta saaray in nabad nolol iyo sidoo kale in shacabku ay ku naaloodaan jawi degan dowladaha caalamkan ay u aqoonsadaan Soomaaliya in markaasi ay tahay dowladda quwad awood badan leh isla markaana shacabkeedu ay ku tiirsan yihiin laakiin hadda madaxweynaha la doortay Xasan Sheekh Maxamuud safarkiisii ugu horeeyay ee dibadda waxa uu ku bilaabay Imaaraadka Carabta taana waxay ku tusaysaa sida markaas uu qadarinayo isla markaana uu doonayo inuu fuliyo danaha shisheeye haddaba arrimaha la yaab kale waxa ay tahay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dheeraaday joogista Abu Dhabi ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta walow warar kala duwan ay ka soo baxayaan haddaba shakhsigan waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay dhiban yihiin dhibkuna ay ka bixi doonaan maalinta xukunka dib ula wareego madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo haddaba waa kan isagoo mar kale ka hadlay saaxiibayaal nala daawada waxba yaa laga dhaafin Soomaali wala deyn baa laga dhaafaa wala waxba laga dhaafaa wala waxba la siiyaa waxa shaqadaada ma qarankii uu dumay meyd hadul fadhiin intaad iskaga baxdo oo lafaaga la baxdo markaad baxdan waxa tira branki baa ahayd waayo hadalkii hore tiro rumaysanayna anagu ka dambe rumaysanayna waa wax lagu qasbay waayo qabayaal baa ku hanjabaya message baa lagu soo diraya waan ku dilaynaa baa lagu oranayaa sa wadamada kale dadka ay ugu dilayaan ayaa message lagu soo diraya waan garanaynaa ujeedada aad u hadlayso waan ku dareemaynaa aad iyo aad baan ku dareemaynaa marka waxaan kugula talinaynaa inaad iskaga tagto oo sii joogin meeshan joogitaan male
ولا يسوق الصنايع حل دبنا دي بالله وقارصنايا وليس للسوق ورتلينا يدل الدل أي قرن مركب بيل ويان معمول بلد ويان بلي آدم كنا معمول بلد وحبكم ما آمني كرو بلي آدم كي بس نركو سمعين أيو دولة بوحلقوا آمنة لكن معمول عدبا حكم آمنيس ماشي واجب هذا وحقب سطيس كتك معمول بلد وي مركب معمول بلد كانت كتكتو أدونا بيش يجين أنا شرفت هذا ملك قد حين بنكور الجانية قرنكي الصوماليات نكي دون يو ودنتي وغيري ده قرنكي صوماليات معمول بلد بكجرة قرنكي حمر بكودنتي مجرمين تي لو شيء يحل دبانا ده يوم ده الصوماليات متلاي أي قرنكي الصوماليات هي الدولة النمدي الصوماليات هي شرفتي الصوماليات هي كرامتي الصوماليات هي هيبتي الصوماليات هي وحي عينو دسني هي سلويني ديني فتاة وفيتي دبادي يكون سوى تشيريين قرن كودي هل كاسو قرن الكبر بري ما أنت اللي هي التوان قولي يبر بنار كأنه واحد قال الصوص واحد قال الكوار كدونتا دقيسو مع موبايلات كحيالها كدع لكن دتكو وإني كفو تشينا ده فيجيلانت وانا ده هاتان وسقدر ارتان ماشي أنا والسكو هنشبيا وحيالها قرى الكال كان كاركينو قريان وحيالها يالا السوق نموي سأرح يالا السوق نمو أرجوسي باجرة ريفنج وحلا يدا باجرة ولا كلا أرجوسنا يا كأركتفق ولا دليا هل كيبا الله مرينا يا ومري نكي عاقل كاها بدل هل كي ومري رجي دلي بجوج حمر رجي دلي بجوج حمر وانا اللي اسكت دليا haddaba adigana daawanaya saaxiib aragtidaada waa inoo muhiim fikirkaagana xor baad u tahay qaybta commentiga waad nagula wadaagi kartaa aragti ahaan sidaad u aragto siyaasigan eedeynta kala duldhacaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan isla markaana ammaan iyo bogaadin u jeedinaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo kuna tilmaamay inuu yahay qarannimadii oo qof ahi markaad TV naga daawanaysan saaxiib haddaad nagu cusubtiin subscribe dhaha gambalaalka furta si ay idin soo gaaraan waxyaabaha xiisaha badan ee markaasi aan soo dhigno haddaad hore inoo la joogto madaxaad inoo saarantihiin dhaliil ama bogaadin tale iyo tusaale haddaad inoo haysaana qaybta comment inoogu reeb waan idin akhrin doonaa waana wadanka youtuberada Soomaaliyeed xaaji duceeda la meesha gaduudan madow ka dhigaysa hadduu noqotaan daawadayaasha ugu horeeya daawado muuqaalada xiisaha badan ee aan soo dhigno muuqaalkan kiisa xigtayna ku kulmi doona anagoo isku duuban xaan idinkaga tagayna sidaas nabadgelyo